marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan sheego protocolka dawladnimadeena waa inaan baranaa sida ku cad qodobka 6 hanaanka dawladeena waxa weeye baarlamaani 66 xildhibaan oo baarlamaanka Puntland uu ka kooban yahay oo ama laga soo xulay ama lagu doortay sida dastuurku sheegay waa doorasho laakiin halkan ku fadhina waa xulasho iyo madaxweyne ku-xigeen ay doorteen baarta dalka weeyaan nidaamkiisu waa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka delegation baa loo sameeyay awoodii dalka iyaga markay tartameen la siiyay sharciga siiyay wixii ku xigana waa baarlamaanka wuxuu leeyahay speakership ama gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo laba gudoomiye ku-xigeen buu leeyahay haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dood baa ayaamaha taagan haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku dalka isku mar ka baxaan ka maqan yihiin dhintaan iscasilaan awoodii waxay dib u noqonaysaa baarlamaanka ay ka timid waa nasiib darro in maalin walba ay tahay protocolka isku haysano meesha kuma jirin laakiin halka wixii ka soconayay baan ka hadlayaa wasiiradu ka hadlayeen waa qalad